kulankan oo looga hadlayay dardargelinta howlaha shaqo ee horyaalla taliska ciidanka asluubta Soomaaliya iyo taageerada iyo soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qabtay xabsiga dhexe Xamar. Madasha ayaa waxaa ku sugnaa siyahayaha taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ahna tali ku-xigeenka ciidanka asluubta Generaal Cabdikariin Cali Afrax iyo saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta. Kulanka ayaa lagu soo bandhigay si isugu jira soo dhaweyn iyo mid taageerid ah. taliyaha hoggaanka wacyigelinta ciidanka asluubta Soomaaliya gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Sahal Shido ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin fulinta amarada ka soo baxa madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud. ayyaada dawladeena annagoo ciidanka qaranka Soomaaliyeed annagoo ciidanka asluubta Soomaaliyeed inaan dawladeena iyo madaxweynaheena inaan Soomaalnimada dhammaan inaan ayidno una shaqeyno si wadaninimo oo aan aynu ku jirin iyo qabiil iyo bataqaana musbaas oo lagu jiro marka madaxweynaheena waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow dalka ku baahan dadka ku baahan. taliya Cabdikariin Cali Afrax oo la hadlayay qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka asluubta ayaa ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay in qaranka si daacad ah loogu adeego iyo muhiimadda kulanka maanta. muraadka saaka shirka loo qabtay wuxuu ahaa sidii isbedelku u dhacay ciidanka asluubtu ma kulmin saraakiisha ciidanka asluubtu ma kulmin inaanu is aragno oo aanu dardargelino shaqada ciidanka asluubta xibin bay ahayd ugu horeysa waxaa kaloo saakay barnaamijku ahaa soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ilaanu soo dhaweyno oo aanu taageerno oo aanu muujino inaan garabkiisa taaganahay haddaan nahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed. soo dhaweyntii waanu muujinay waa soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliya waa garab taaganahay il iyo af iyo adin iyo waxaan heli karno oo caloolsami iyo maxaan ku raadaa inaan nahay ciidankiisii aan u muujinaynaa ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala.